ciidanka xoogga dalka Ogaadeniya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka Ogaadeniya waa hagaaga khiyaarta hawada nagala socotay wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii ay galabta oo jumcaha idinku tala gashay raadiyo xiriyo idaacadda raadiyo xiriyo oo aad dhagaystayaal uga barateen inay naftood furayaasha taliyayaasha iyo waliba mas'uuliyiinta ciidamada qalabka sida ee jawxo ku waraysato jiida hore ee dagaalka ayaa waraysi xasaasi ah la yeelatay gudoomiyaha garsoorka iyo cadaaladda ee jawxo naftii hore Cabdiraxmaan Warmahaye oo ku sugan jiida hore ee dagaalka ee gobolkaasi Jigjiga ee waddanka Ogaadeniya wuxuuna waraysigii oo aan anigu qaaday u dhacay sida tan الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفتي هوري وانكو سلامي. هذه أدمان سلامة دمان هذه بعد حرية دمان وكلامه ورك دمان هذه أدمان سلام. نفتي هوري waxaad ku sugan tahay gudaha Ogaadeniya siiba qaybtaasi Jigjiga ayaad hadda ku sugan tahay waxaad kamid tahay ciidamada qalabka sida xoreynta Ogaadeniya nafti horeyaasha saraakiishooda kamid tahay waxaad tahay gudoomiyaha hoggaanka garsoorka bal ka waran xaaladda guud ee garsoor ee shacab iyo ciidanba. صاحب آدي آد مرتكو سلامة يا مركه هره وحن كفاية سنة يا كلن كان وحن سلامة يا دمان نفتو هرياشة يا كلن كلا قيود يا قيسة ولا يا حرمت شركة صغيرة قلي أنت كبعد سلام كده أنت الجرسور آدي آد بهرته في عنطاي يودن كان وارد الدبات هذا كشركة على وجيبها كنت مانيا لكن حق إذا مضى بالشدة الدحدة كسر كثير بعدين آد ممكن شيء وفي عينه مركا نلعب واصدات مركا وده حق كلا عدو قم بعد كثير مو حق كلا آد وفي عينه بالشدة كسر لأنهم بس عدالة كلام ما هي لابد هؤلاء الدحمة صار حاجة إنهم بيسووا بيسا ما حد قرصورتان نفسي هو ما حد قرصورتان تروح وقرصورتان يادو كلا قرصورتان waxaan u garsoornaa dhammaan bulshada dhexdeeda wixii haysta wixii dhibaha ka dhex jira maanta dhibaatada jirta waxa weeye cadowgii baa dadka waxa weeye inta badan isku dira markay taa ogaadeen bay dhammaantood wixii howlaha iyaga dhexdooda ahayd oo dhan bay kula soo cararayaan haddee wixii markaa dhexdooda ciidamada aan badnayn waaba iska sidaas marka sidaa waxyaabahan garsoornaa waxa weeye saaxib waan gartay gobolka waxaa ka jira maamul wakiil ka ahaa gumaysiga Itoobiya oo leh hay'adihiisa kala duwan sida ay sheegtaanba sida garsoorka oo kale marka shacabka magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo inta ay ka soo tagaan bay idinka soo gardoosan ha waxa weeye iyagu meesha meesha cadaalad jirto ma dadku carari tuulooyinka iyo magaaladii iyo xitaa meeshii weyneyd ee Jigjiga laga soo cararaya markaas loo imaanaya naftooriyaasha waxa la leeyahay waxaan u baahanahay bal dhibkan haysteen la noo kala saartaan wax kasta jabada wadana xoreynta Ogaadeniya tiraadana wayba ku qancayaan waayo mar walba cadaaladii baa iyaga agtooda taala waa miisaankii cadaaladda marka sidaas oo arkaan bulshadoodii baa ku qanacsan dhibaatada meesha ka haysatana qofka marka ugu horeysaba waxa la leeyahay iyagoo u tago intaasoo lacag horta keen intaan arintaada gelin marka dadkiina waa artay waxa abaar iyo dhibaato iyo mashaakil ku dhacday khaasaa marka waxay keenaysaa inay u soo cararaan jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya aan ka faa'iideysto naftii hore fursadan waa markii koobaad hoggaan garsoor ay raadiyo xiriyo hawada ka waraysato dad badan baa ina dhageysanaya iyadu waa sidee garsoorka jabhada dhexdeeda ah ama ha ahaado mid naftood horayaal ama ha ahaado mid xubnood oo gudaha Ogaadeniya jooga isaga ba nooga war xubnaha Ogaadeniya qaybaha waa taqaanaa dhammaantood qayb waliba waxay leedahay 4 xubnood guddiga sarana waxay leeyihiin 4 xubnood dadka noocaas ah weeyaan garsoorku waa garsoor aad iyo aad u tayeysan marka sidaas darteed wax walba oo hawlde maanta oo cadaaladeed meeshaas ay taala marka hawsha sidaas u socotaa saaxib naftii huraha ama hawlwadeenka jooga gudaha Ogaadeniya ee khalad si kas ah ama si kama uga gala shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee gudaha ku nool qaybihiisa kala duwan isaga garsoorkiinu ma qabtaa seeta u garsoortaa waxaa loo garsoorayaa asaga iyo qofku waa laba qof oo horta muwaadiniin oo reer Ogaadeniya maadaama ay laba qof oo reer Ogaadeniya yihiin oo muwaadiniin yihiin siday tahay baa loo garsoorayaa maaha qofku kana qori wata maaha
kana ciidana maaha kana shacaba maaha reer ogaadeen cadaalada way simeeyeen hadar waa gartay wixii kama ah waa sideeda laakiin kaska ciidamada qalabka sida xoreynta ogaadeen iyo xubnahooda hawlwadeenka gudaha ogaadeen ku jiraba arrintaasi baraarug dheerada ma kale yihiin in garsoor uu jiro oo uu jabhada dhexdeeda ka jiro gudaha iyo dibadba oo cidii khalad gashay ama shacabka loo halgamay ka gashay lagu xisaabtamayo garsoorku waa lagu baraarugsan yahay wuu jira weliba waqtiyaalda waxaad maqli doontaan mid aan fulinay hadda koorna waan kusoo fulinay marka waxa weeye sidaas weeye garsoorku wax dhaliil iyo dhibaato midna ka jirta maaha waana wax lagu wada qanacsan yahay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen shacabkooda way ku qanacsan yihiin shacab ahaan waan gartay kuwa gudaha ogaadeen iyo jooga hadday ku qanacsan yihiin naftoodurayaasha qoriga sitaay ayagu ma ku qanacsan yihiin xukunkii iyo garsoorka kolba lagu rido way ku qanacsan yihiin oo waxa weeye xukunku waa laba qaybood mid sare iyo mid hoose oo qaybtooda ah marka waxa weeye ninku haddii uu ka qaybta ku qanci waayo ambiil buu qaadanayaa ambiilka markuu qaataa haddana dib loogu noqonayaa marka wixii dee ambiilka uu sii qaadanaya ninku muxuu yahay xukunka ugu sarreeya ee qaban kara nafti huraha ama xubnaha gudaha ogaadeen iyo ka howlgalay muxuu yahay xukunka ugu sarreeya qaban kara waxa weeye qofku markuu si ula kaca qof u dilo waxa weeye waa dil waa tahay gudoomiye aad baa umahadsan tahay fursaddan anigoo ka faa'iidaysanaya weli shacabka soomaalida ogaadeen ee gudaha idinla jooga ee tuulooyinka baadiyaha iyo magaalooyinka laftooda idinla jooga iyagu laga yaabo inay qaarkoodna taageerayaal yihiin qaarkoodna ayna taageeraba ahayn isticmaalayaal yihiin iyagu hawlgaladiina iyo garsoorkiina iyo xukunkiina say u arkaan aad iyo aad u arkaan iyagaaba akhbaar kusoo diraya meesha markaa uusan garsoorku joogin ciidanka ka hawlgelaya waraaq loo soo dhibaya waxaa laleeyahay waxaan u baahannahay hebel iyo hebel baa ishaysta ree hebel iyo hebel baa ishaysta waxaan u baahannahay inaan garsoorka noo yimaado marka sidaas darteed baa markaas sidaasaa loogu tegayaa sidaasay hawsha ku dhamaanaysaa marka xubnaha garsoorka ee adigu aada madaxda ka tahay ee ka hawlgala gudaha ogaadeenaya dhammaantood ma naftood horayaal baa mise dad shacaba oo rayid ah oo magaalooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ogaadeenaya kusugan baa kamid ah xubnahan anigu mas-uulka ka ahay anigu de waxaan kamid ahay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya qaybta ciidamada marka xubnahan anigu mas-uulka ka ahay dhammaantood ciidamada ka tirsan yihiin marka garsoorkiina wax shacaba oo haba yaraatee ama rayida oo ku jira oo degmooyinka tuulooyinka iyo baadiyaha oo hawlahaas idinkala shaqeeyo oo guddidiina ku jira ma jiro ma jiro waxa weeye duruuftaan ba ogoleen qofka haddii lagu ogaado inuu garsoorkan la shaqeynayo waa taqaanaa dadkeena dee lafiisa khatar gelaya marka sidaas darteed ninkan maaragtay hubaysanaha ayaa wuxuu noqonayaa waktigan cadaaladii ah waan gartay guddoomiye soo lama odhan karo marka maadaama ay xubnuhu dhammaantood naftoodurayaal yihiin qori sita inay seeftoodu markasta galka ka baxsan tahay oo ay markasta xukunno adag fulin karaan maya ma fulinayaan naftood horayaashu waa kuwii bulshada kasoo dhashay waa kuwii kasoo baxay waa kuwa naxariis badan waa kuwa dadkooda u nasteexeeya jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenayaan waa taqaanaa dhaqankeeda aad iyo aad bay ugu jilicsan tahay xagga shacabka marka sidaas darteed markii kiisaskaas oo kale ay jiraan culimo diinka meesha jooga ayaa kaala qayb qaadanaya maaragtay sidii sharciga iyo xukunka kaala qayb qaadanaya aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan warmahaye guddoomiyaha garsoorka ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya allahayow jidkaan raba shacbiga jamaciisu qaado oo waan jantaaye aan xornimood siba nidhahnaayo allo waan dad jira noqonna oo joogsada calanku allahayow jajuuskiiyo kufriga jubucnaan waayo allow nala jir gaalkuna ha jabo iyo jawaasiisto allow nala jir gaalkuna ha jabo iyo jawaasiisto jahliyadaha ogaadeen iyo meelo badan jooga kuwa jaarka reer yurubahee jooga faransiiska kuwa jaarka reer yurubahee jooga faransiiska kuwa kanada jeblayn hayee toronto jaasaya norway kuwa jooga ee ciidra kala jiifa jarmaliyo jabuutiyo kuwa carab dhex joogowba jiidhkiina kuma taal malaha inaad jahadaane malahay jacaylu ma qabtaan jaha ogaadeenya kobta joofka leys haysta ee laysku jaarihayo iyo jirtaane qalbiguun haddaad kala jirtaan geesiyaada jowxo jaleecada dhankiina indhuhu ima jilaad meene inkastoon jarramin oo tigree aanu jabin hayno
inkastoo shacbigu jawxayahay jamacahantiiba inkastoon rag wada jiran iyo jamalaan haysto inkastoo barhkii nala jiro jiifka leedi waayo haddana jamacahan waan jeclahay inaad jahadaane haddana jamacahan waan jeclahay ree jahliyadoowe jigta bixi jawiga qayladiiyo jaanis yaridayda dalka idinka oon joogin baad jawda maqashaane inaad jeexdin laysugu jabad malaa u jeedaane in yar baan xornimo ula jiraa oo jar baan hadhaaye ninkii aniga ila jeelahoo weedha jamataadhe waraad jeceshihiin oo jiro lagu jidboodaadhe